رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلن كان السدحات كلن كي هره waxaynu kaga hadalay salaada caawana waxaan dhammaystireynaa qayb kale oo salaada ah. saad ogtihiin salaadu waxa weeye waxyaalaha ugu muhiimsan oo ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala. waxaa ugu sii muhiimsan sujuudda. qofku markuu sujuudo wuxuu dhigayaa jabhadiisii dhulka meeshii lagu soconayay. waxaa weeye isdullayn meeshii ugu dambeysay oo qofku isu dullayo. marka qof tukanaya waxaad garanaysaa qof ilaahay u dhow inuu yahay subxaanahu wa tacaala. caawa waxaan jecel lahay insha allah ilahay intii noo fududay khaladaadka dadku ay sameeyaan marka ay salaada ku jiraan ama salaada u socdaan ama salaada sugayaan. waxyaalaha ay sameeyaan oo qaladka ah baynu dul maraynaa insha allah. aad bay u fara badan yihiin qaladaadkaasu, laakiin waxaan ka soo qaadanayaa caawa ilaa 37 qalad oo dadku ay galaan. kan koowaad waxa weeye qofku markuu salaada galayo inuu yihahdo nawaytu fardal salaati الظهر 4 ركعات iyo arrimo lamid ah, ama usalli uu yiraahdo. waxaasoo dhan wax daliila ma aha. salaada nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam in allahu akbar lagu galo. marka intaan kale xaggee bay ka yimaadeen garan maysid. niyadda waxa weeye alqalbiga weeye, in lagu dhawaaqana looma baahna. allahu akbar un baad oranaysaa, salaada ku galaysaa. sidoo kale kama horeyso salaada horteeda duco la ducaysto. imaamkiiyo taagan ba arkaysaa dad ducaysanaya ma jirto iyadana. qaar acuudu billahi min ashaytaan arajiim le baad arkaysaa. waxaasoo dhan daliil ma laha. tan labaad waxa weeye qof baa imanaya, imaam rukuucsan buu imanaya, wuxuu rabaa inuu rukuuco. marka isagoo sii socda ayuu rukuucaya. maya, waa inay xirashadu ama takbiiratu lixraam ay dhacdaa qofkii oo taagan. tan saddexaad oo la khaldo waxaa ka mid a cawrada qofka oo faydanta. cawrada qofka oo faydanta matalan waxaad arkaysaa dad qaba shaati iyo surweel, markuu rukuuco ama sujuudo dhabarkiisa baa la arkaya. saa awgeed cawradu waa inay intaa salaada ku jirto dhan ay asturan tahay. cawrada ninkana waan soo sheegnay waa maa bayna sura rukba. qofka dumarkaana waa kulligeed maa cada alwajh walkafayn, wejiga iyo labada calaacalood maahane. khaladka kaloo dadku ay ku dhacaan salaada oo wax u dhimayo ama burinayana waxa weeye faatixada oo la khaldo. faatixada waxaa la rabaa in la barto, maxaa yeelay in lagu tukadaa la rabaa. sabculmathani baa la yiraahdaa, faatixa la yihahdaa, waxaa la yihahdaa shaafiya, magacyaal badan bay leedahay. marka waa in 7daas aayadood oo faatixada qofku waa inuu qof shiikha ka bartaa. qaar waxaa arkaysaa walalaaliin leh. walalaaliin ma jirto, ma garanaysaa. tan shanaad waxa weeye qof baa u imanaya imaam rukuucsan inuu la golou rabaa. imaamkii oo soo kacaya ayuu isagoo rukuucaya, marka way isdhaafayaan. maya, rukuucdaas qofka ragcadaas qofka uma xisaabsana. waa inaad rukuucda ku gaartaa isagoo rukuucsan oo weliba qadar la yiraahdo subxaan allah. in laga yirahdo subxaan allah inaad la rukuucsanaatid baa la doonaya. qaarna waxayba sameeyaan markuu soo istaago kabacdi bay rukuucaan oo samica allahu la yirahdaan, markaasay haddana xisaabsadaan. ragcadaas qofka uma xisaabsana. tan lixaad oo salaada wax u dhimayso bal burinaysa waxaa ka mid a nagaansho la-aan. istaagidda aan lagu negnaan, rukuucda aan lagu nagaan, rukuucda kasoo kiciddeeda markaa ictidaal sameysa lagu nagaanin, sujuudda aan lagu nagaanin, fadhiga labada sujuudood udhexaysa oo aan lagu nagaanin. intaasoo dhan oo aan lagu nagaanin waxay keenaysaa salaadu inay burto. maxaa yeele nagaanshaha lagu nagaado afcaasha iyada ah oo salaada gudaheeda waa rukni. rukni haddii laga tagana salaadii waa buraysaa. waxaa kaloo salaada dhaawacaya ama burinaya in imaamka laga hormaro oo isagoon rukuucin la rukuuco, ama isagoon sujuudin la sujuudo, ama laga soo kaco rukuucdii isagoon ka soo kicin. ama haddii aa ma'muum tahay oo imaam ku dayanaysid waa ku noqonaysaa. hataa hadday khalad kaaga dhaco ruknigii baad ku noqon. waxaa aada iyo aada u fara badan dad
imaamkiiyo faatixadii int rukuucay faatixadii akrinaya, uu kasoo kacay faatixadii buu akrinaya, waa sujuuday weli faatixadii buu akrinaya, qofkaas salaadiisa waa buraysaa haddaa imaamka ka hartid. maxaa yeele imaamka waxaa loogu talagalay in lagu daydo siduu nabiguna yiri alayhi salaatu wassalaam. waxyaalaha kale oo aada nabigu uga digay waxaa kamid ah cirka oo la eego samada, oo waxa kusoo arooray waciid aada u daran. sidoo kale waxaa iyadana aan la ogolayn inaad dhinacyaalka eegtid adoo salaada ku jiro oo saa tiraahdid ama saa tiraahdid ama horta meelo fiirfiirisid, maya. taasna nabigu wuxuu ku tilmaamay si shaydaankii oo salaadaadii kaa xadaya. waxaa kaloo qalad ah sujuudda marka la sujuudsan yahay oo sanka dhulka la dhigin. sanka waxaa la rabaa dhulka in la dhigo. sanku wuxuu ka mid yahay jabhada iyo sanka, labadaa waa in dhulka la dhigaa. waxaa kaloo qalada oo dadku ay sameeyaan markay salaada ka baxayaan inay farahooda saa yiraahdaan, farahooda saa leeyihiin ama saasay oranayaan. markuu xaggana saanuu leeyahay, markana lisaan kanuu leeyahay, ama qabla intuusan salaamu calaykum dhihin buu gacmaha saa oranaya. lama ogola iyadana, oo waciid baa kusoo arooray nabiga caleyhi salaatu wassalaam. waxaa kaloon la ogolayn salaada in laysu ekeysiyo adoo salaada ku jiro xoolaha, sida tukaha oo kale. tuku waa aragtay dab, ama digaaga oo kale, ama ma garanaysaa thaclabka dawacada oo kale say waxyeesho eegideed oo kale, ama ma garanaysa eyga sidiis oo kale oo gacmihii oo dhan dhulka la dhigo ya, ama loo fariiso sida eyga u fariiso lugaha uu taago saa u taago. waxyaalahaas oo dhan lama ogola. waxaan kaloo la ogola in salaada dhexdeeda in lagu hamaansado. ogow hamaansigu sidiisaba waa makruuh, ilaahay waa necab yahay subxaana wa tacaala, hindhisadana waa jecelyahay. marka salaada markaa kusii jirtidna waa kasii daran tahay. dad waxaa arkaysaa salaada iyagoo ku jira ragcad walba 3 mar hamaansanaya, shaydaan baa ka shaqaynaya. marka hamaansiga la dagaalan, afkaaga xir. haddii aad xiri weydana gacanta bidixdaa baad ku xiraysaa. laakiin waxaan jirin haba yaraatee cod lasoo bixinayo ama laleeyahay laleeyahay, xataa salaada haddaadan ku jirin waa wax xun. sidoo kale waxaan la ogolayn salaada in aada loogu dhaqsado oo deg deg fara badan, daf 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 kaanamaa inuu maaragtay geel kaa cararayo o kale. waxaa kaloon la ogolayn dadka jamaacada tukanaya safafkoodu inayan sinayn, oo luguhu ayan sinayn, garbahoodu ayan sinayn. sidoo kale waa inayan lahayn meelo u dhexdhexeeya lugahooda, shaydaankaa gelayino nabiga caleyhi salaatu wassalaam. waxaan kaloo la fiicnayn in masaajidka loo soo wato ilmo aan aada wax u kala garanayn, 2 jir ama 3 jir. masaajidka haddaad keentid dadkii buu rabshayaa, isagii buu isqaribayaa, salaadaadii buu ku cayaara. adiguna maanta dhan isagaad celinaysaa. qaad ba arkaysaa ilmahoodii bay ku dhegan yihin 24 saa celinayaan, maya. sidoo kale waxaan la ogolayn oo nabigu ka digay in qofku masaajidka meel dhinaca ka dhigo. odayaasha u badan arrintaas, meel bay qabsanayaan, meeshoodii haddaad fariisatid iiga kac buu ku leeyahy. meeshaan cidna iskama laha. safka koowaad haddaad ka heshid meel alla meeshaa ka heshi fariiso. haddii aad weydid meeshkii safka labaad, ma garanaysaa. weliba qaar waxaa arkaysaa jumcahoo kale intuu dadka soo dhex maro, waana xaaraan arrintaa iyada ah, intuu soo dhex maro iga leexda meesha dadkii kala leexinaya. kaasu dembi aada u fara badan ayuu kasbanayaa, meeshuu ajar kasban lahaa. sidoo kale waxaan la ogolayn salaada marka laga baxo in la caado laga dhigto in laysa salaamo, taqabal allahu mina wa minkum iyo saas iyo ilaha naga aqbalo iyo la yiraahdo salaad kasta dabadeeda. waa kaa. sidoo kale lama ogola in masalka la tasbiixsanayo ama la duceysanayo in wejiga la masaxo oo saa la yiraahdo, meel ay ku taalna anigu ma aanan arkin. sidoo kale in marka la duceysto kabacdi faatixada la akriyo meel ay daliil ku leedahay anigu ma aanan arkin. sidoo kale in laba duceystaba wakti kasta salaad laga baxoba oo dadku ay imaamka ka sugaan duco, wax daliila male iyaduna, nabiguna ma samayn jirin caleyhi salaatu wassalaam. waxaa kaloo khalada oo salaada qofku intuusan gelin masaajidka, hadda fitno kalea noo soo siyaaday, mobileka in la damiyo ama codkiisa laga dhigo mid aamusan, silent ama summit laga dhigo, ama mid aamusan ayaa la dooni. ma ahana isagoo iska qaylinaya. qaar baaba muusico u daaran tahay, oo muusico markaasuu ma ku raaxaysanaya baad leedahay, dadkiina waa dhibaya. sidoo kale waxaa khaldan atixiyaadka in la khaldo. nabiga caleyh isalaatu wasalaam asxaabta wuxuu u bari jiray atixiyaadka siduu u baro suuradda qur-aanka oo kale.
marka waa inaad iska toosisaa tashahudka wax la yihah ama taxiyaadka. waa kaa waxaan kaloo la ogolayn in lagu mashquulo dharkaaga, timahaaga, garkaaga. qaar baa arkaysaa mar walba cimaamaday saa leeyihiin, saasay leeyihin cimaamadii, ama garkiisibuu saa ku hayaa maanta o dhan, ama timihii buu hagaajisanaya, ama saacadiisa. qaar cidiyaha cunayana waaba aragnayba oo cidiyaha iskaga jaraya afkooda. waxaas oo dhan khatar waxay ku yihiin in salaadaadii ay burto. waxaa kaloon la ogolayn oo laga fiican yahay in salaada markaa faradka ka baxdid adoon u dhexaysiinin wax faraaqa sunno aada u kacdid, iyadana ma wanaagsana. waa inaad tasbiix ama adkaar ama wax u dhexaysiisaa. waa kaa sidoo kale waxaan la ogolayn marka salaada la aqiimayo ama la aqiimoba inaad salaad sunno oo kale aada geshid. taas waxay u badan tahay muxuu ahaa marka ma garanaysaa salaada subax oo kale, fajriga 2 ragcoo muhima baa jira. 2 ragcay rabaa inay ka gaaraan, markaas imaamkii salaada ku jira ad arkaysa iyagoo 2 ragca tukanaya. waxay u badan yihiin badanaa bakistaniyiinta iyaad ku arkaysa. maya, xataa haddaa ku jirtid oo la qiimo salaadaadii ma jirto. laa salaata idaa uqiimat asalaatu falaa salaata ila almaktuuba. haddii salaad la qiimo ma jirto salaad kale, taas la qiimay mahane oo faradka ah. canqowga inuu ka hooseeyo maradaadu toobkaaga ama surweelkaagu inuu canqowga ka hoos marayo haddaad nin tahay waa xaaraan. maa asfala alkacbayni fi nnaari, xadiis baa oranaya nabiga caleyh isalaatu wassalaam ka sugnaaday. sidoo kale waxyaalahan la ogolayn waxaa ka mid ah wax afkaaga uraya sida basal, toon, sigaar, qaad, waxa adoo soo cunay oo afkaagii markaa u urayo inaad masaajid ka timaadid. marka la istaagan yahay in gacmaha lasii daysto iyadana lama ogole, waa in lagu qabtaa sadriga, waa in lagu qabtaa, maaha xudunta hoosteeda ee waa sadriga, waa caloosha korkeeda wey. sidoo kale marka samic allahu leedahay, samic allahu liman xamido waa leedahay, gacmaha saasaa leedahay. 4 meelood oo gacmaha la rafciyo o dhan saas baa la oranayaa. qaar baa waxaa arkaysaa samic allahu liman xamido saaleh, maya taasuna ma jirto. waxaa kaloo xaaraana qabuuraha in lagu kor tukado ama loo tukado qabuuraha iyadoo loo jeedo. waxaa kaloo iyadana qalada in adkaarta la iska rabo sida subxaana allahi, subxaana rabiy alaclaa wabixamdihi matalan oo kale, inta la iska dhaafo ducooyin kale la akhristo. horta kuwa markaa dhamaysid kabacdi ducayso. ama qaar waxaa umaraysaa samic allahu liman xamid bay waxay leeyihin samica rabbana walaka alxamdu washukru bay ku leeyihin. washukru ma jirto, ma sugnaa, nebiga kama sugnaan aleyh isalaatu wasalaam. adkaarta marka waa intii nebiga in lagu ekaysto, meelahoodana lagu akriyo. qur-aan kuma akrin kartid sujuud, rukuucna kuma akrin kartid. sidoo kale waxaa xaaraana qof tukanaya hortiisa in la maro. qofkuna waa inuu sutro samaystaa. marka sutrada waa wax teedsan oo aad salaadaada ku ilaalinaysid. qofku waa markaa keligaa tahay ama amad imaam tahay. qofku marka hadduu kor kaa maro mushkilo male, laakiin adiga sutrada dhexdeeda in la maro lama ogola. haddii imaam iyo ma'muumiin ay jiraanna sutrada imaamka waxay u tahay sutro ma'muumiinta, marka safafka ma'muumiinta waa la dhex mari karaa. sidoo kale lama ogola inaad tiraahdo qur-aanka qalbigan ka akrinaya adoon bushimahaagii iyo afka carabkaagi dhaqdhaqaajinayn. waa ka iyadan lama ogola. waxaan kaloo la ogolayn markaad sujuudsan tahay lugaha in kor loo qaado, adaa sujuudsan lugahaagi kor jiraan sida caruurta yaryar ay sameeyaan oo kale. lugaha kor in dhulka laga qaado, waa inay luguhu dhulka ku dhegan yihiin markaad sujuudsan tahay. 7 meelood oo lagu sujuudaya bayna ku jirtaa. sidoo kale masaajid haddaad timaadid ood ku tukanaysid, maaha meesha ugu dambaysa inaad fariisatid. waa inaad ku dadaashaa safafka hore inaad geshid, leanna safba safku ka horeeya waa ka fadli badan yahay, midba midku ka dameeyana waa ka khayreer yahay. ma garanaysaa? oo xadiis nabiga caleyh isalaatu wasalaam baa arrintaas sheegaya. waa ka weliba wuxuu xadiisu leeyahay nabigu, haddii aad ogaan lahaydeen fadliga aadaanka iyo safka koowaad ood u qori tuurataan maana si kaleedan u aqbasheen, waad u qori tuuran lahaydeen. sidoo kale waxaan la ogolayn salaada jimcaha marka lagu jiro haddaa soo geshid oo qof ku salaamo oo khudbadii imaamku taagan yahay xataa u jawaabi maysid. iska dhaaf inaad la sheekeysatid ama xaggee jirta iyo xaggee ka timi iyo maalmaha laguma arkin iyo ma jirto, iga durugiyo ma jirto. kulli waxay burinaysaa khudbada jimcaha. jimcaha waa hal raa in la aamuso khudbada lala socdo. faraha in laisdhexgeliyo saas
lama ogola adoo salaada sugaya ama adoo salaada u socda. waa la mamnuucay oo taa nabiga caleyh isalaatu wassalaam ayaa arrintaa reebay. saa awgeed marka waxaan idin xasuusinayaa intaasoo qalada iyo in kale oo iyaduna ka badan oo dadku ay sameeyaan inaad iska ilaalisid si salaadaadu ay u noqoto mid ilaahay aqbalo. ilaahayna ha ka yeelo acmaasheenna miduu iyagu aqbalo. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.